جيبوتي إريتريا ولبدل وأنا سلايها ولو بهاي الصومالية إن حرير استراتيجي جيش أفريقيا أي كلا سنة ستة وأنا إريتريا اسمه قضية دير أيا نقدر حيد إلا وقت دير هل جميسي أيا مثلا أنكو معناها صوماليا إريتريا كوز جرتي أو تيكي تجاني كدب دبعتي إمبراطورية إثيوبيا وين ساميدي لبدا نبا لكن مركز جيبوتي إريتريا markay noqoto runtii horumarinta waxa iskala Djibouti taas qof Soomaaliya la weydiimayo ru'aantii aniga bargii madaxweynaha la yiri wuxuu aadayaa Asmara dhanna waa ka soo dhaweeyay oo waa loo baahnaa dhanna waxbaan iska weydiinay oo ah haddii aysan macnaha booqashada oo ku tagayo oo san farriin ka sirin Djibouti oo arinta Djibouti aysan kamid ahayn jadwalka ka wada hadli doonaan hatta si dhinac aysan toos ba uusan ahaan madaxweyne Afwerki waxaan isleeyahay meeshaas dhibaato ka socota waxaana muuqata duufaanta isbedelka aan caadiga ahayn oo loo baahnaa in siyaasadda Soomaaliya ee geeska Afrika ay wax badan ka fiirsato hadda dulaba waxa soo baxay dhaawac loo baahan yahay Soomaalida oo dhan inay dhaydo oo ah Djibouti oo ogsoonahay in dagaalka ka dhaxeeya Eritrea iyo ayada oo sabab u ahaa nabadeenta Soomaaliya iyo dib u soo celinta dowladnimadii Soomaaliya waan ogsoonahay sidaasii dib u xiranta iyo dowladii Allah u naxariis Cabdullaahi Djibouti khilaafkii ka dhaxeeyay waxa lagu xaliyay Djibouti ciidamadii Etoobiyaanka ahaa ee dhibaatada culus ka gashay Soomaaliya ee heshiiskii Djibouti ay horseeday oo aan ka warqab horseedka oo ka ahaayeen United Nationska iyo wakiilkeedii Soomaaliya bariga Ahmed Walad Cabdalla Danaastray heshiisku waa laga warqabay sida uu ahaa colaadda fiirsa Xasan oo sidee buu saameyn ugu yeelan karaa marka arrintan hadda Djibouti ay sheegtay inay aadka uga naxday sidee buu xiriirka labada wadan u saameyn kartaa marka akmaya waxaan isleeyahay sida safiirku bay yiri arrintaas xoolaha dowladda Soomaaliya dib u eegto raaligelin siyaasadeed iyo dhayida adiga aad tiri hal dhayo waa loo baahan yahay in hadda kadib qaladaadka noocaas oo kala laga fiirso siyaasadda Soomaaliya arrimaha dibadda waxa moodaa badana inaysan base lahayn cadifad iyo in diyaarada raaco iyo in dowladaha heshiis degdeg ah la soo galo ma aha marna ma aha waxaan soo qaladaad faro buuxa ayaa dowladda tiiday inay saxda loo baahnaa khilaafaad ka misalan saameeyo haddana saameynta kula waa kan ka dhaxeeya dowladaha khaliijka ah dhan haddaan ka fiicannahay oo anigu waxaan ka nahay dhexdhexaad dhanna waana ka misalan waana ku eedeynaya inaan dhinacyo u badannahay Djiboutina waxaan isleeyahay kaas ayaa saameeyay ayada iyo Eritrea khilaafaadkooda waan loo ciidamada qadar kala dhex fadhiyay labada dal colaadaheeda qadar ayaa markii isku lahayd xiriir labada dowladood la fiican hadda imaaraadka ayaa bedelay oo aan ogsoonahay inuu u janjeero Addis Ababa iyo Asmara oo Soomaaliya iyo Djibouti laga yaabo inay yihiin labada dowlad oo loo danleeyahay in xirada la soo geliyo marka waa loo baahnaa siyaasad ka dhaxayda oo mesela shar go'an ama jaan go'an oo Soomaaliya iyo Djibouti waa aaday lagama maarmaan u tahay waxaan hadalada mesela warqadda safiirka ku qornaa Soomaaliya aan ogsoonahay inaan la soo jabnay ciidamada ay nooga dhimanayaan oo aan joogno inay dulmarto haddana la kashan waa mesela qalad weyn meesha ka muuqda